Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan. Qisada maanta aan idiin soo wado waxaa idinkaga soo qaaday kitaabka Quraanka. Qisada Cuseyr. Haddaba yuu yahay Cuseyr? Qisadiisoo dhammaystiranna maxay tahay? Cuseyr wuxuu ahaa nin reer Bani Israa'iil ka tirsan oo noolaa xilligii boqortooyadii Nabi Suleymaan markay dhamaatay kadib. Dabcan Yuhuud markii Nabi Suleymaan boqortooyadiisii ay dhamaatay kadib way kala firxadeen. diinta Ilaahay u soo dejiyay ay ka tageen, kutubada Ilaahay u soo dejiyay inay ku tuntaan ay bilaabeen, ambiyada Ilaahay u soo diray way dileen, waxa Ilaahay u xalaalay wuxuu u xarimay wax dhan way ku tunteen. Markii dambiyadii ay galeen darteed Ilaahay wuxuu ku saliday Bukhta-Nasr. Bukhta-Nasr markuu wuxuu ahaa ninka xilligaas ugu awoodda badnaa caalamka. Dowladdiisu waxay gaartay heer ay fido ay bilaarato ilaa uu ka taliyay dhulkii Falastiin oo halkaas ay degnaayeen Yuhuudda markii Bukhta-Nasr si xun u galay uu baabi'iyay guryahoodii uu gubay, kutubadoodii uu gubay, Tawraad uu gubay, kutubadooda markuu gubay taas waxay ka qayb qaadatay markii jahligii reer Bani Israa'iil inuu sii bato, baabaoodii ay dhan ay baaba'aan. Wuxuu u geystay xasuuq ilaa maanta reer Bani Israa'iil ay ka sheekeeyaan. Ayagoo xaaladaas lagu jiray marka Ilaahay wuxuu u soo diray Cuseyr oo ahaa ninka keliya ee xifdisanaa Tawraad xilligaas oo ahaa nin saalixa. Ilaahay markuu u soo diray Cuseyr wuu soo baxay, dameerkiisuu soo qaatay iyo cuntadiisa yareed wuxuu soo aaday tuuladii loo soo diray. Cuseyr markuu tuuladii loo soo diray uu yimid wuxuu arkay burburka baabaa iyo halaaga gubitaanka uu geystay Bukhta-Nasr magaaladaas ama tuuladaas. Marka wax nool oo dhaqaaqa ma lahayn. Markaasuu tuusa u istaagay la yaabay. Wuxuu is dhahay qoomkan oo dhintay magaaladan burburtay sidee dacwada ku gaarsiinay hadduu Ilaahay soo nooleeyo markaas kadib aad dacwada u sheegtid maahane. Haddana wuxuu is dhahay burburkan iyo hoogan sidaan dadkaas u baaba'een siduu Ilaahay ku soo nooleena. Tacajub la noqotay way la yaabtay. Waxaa ka wada wuu la yaabay laakiin muusan inkirsaneyn inuu Ilaahay wax soo nooleyn karo. Wuu iska soo baxay meel gees uu iska yimid, dameerkiisii meel ku xirtay, uu fariistay cuntadiisii markuu la soo baxay oo wuxuu watay sida la soo wariyo tiin zaytuun ma maqlayno tiinkaas iyo canab iyo cabitaan. Marka cuntadiisii la soo baxay asoo saas ah Ilaahay ruuxdiisii qaaday oo Ilaahay u dhinsiiyay. Wuxuu dhinsanaa oo meyd ahaa 100 sano oo Ilaahay ruuxdiisa hayay. Kadib Ilaahay wuxuu sameeyay ruuxdii ku soo afuufay. Marka waxaa la soo wariyaa markuu Ilaahay ruuxda ka qaadayay inay ahayd subax hore, markii Ilaahay oo nafta ku soo celiyayna ay ahayd gelin dambe ama waqti dambe. Markuu indhaha kala qaaday wuxuu arkay qof su'aal weydiinaa. Marka qofku wuxuu ahaa malag oo dad Ilaahay u soo ekeysiiyay. Su'aal la weydiinaa isaga waxaa la dhahay kam labithta meeqaad joogtaa halkan. Markaasuu geesuu fiiriyay wuxuu arkay waqti dambe inay tahay. Wuxuu dhahay meesha waxaa joogaa maalin barkeed ama maalin qaala wuxuu yiri marka labithtu yawman aw ba'da yawm, maalin ama maalin barkeed. Markaas waxaa la dhahay iska dhaaf laakiin waxaad joogtaa halkan 100 sano. Fiiriyaa la dhahay waxaad fiirisaa cuntadaada fiiri maysan isbedelin, cabitaankaaga fiiri muusan isbedelin, laakiin dameerkaaga fiiriyaa la. Dameerkiisii wuu dhintay oo wuxuu ahaa lafo meel yaal. Markaas Ilaahay wuxuu tusaa su'aashii uu isweydiiyay, la yaabkii uu isweydiiyay Ilaahay wuxuu ku tusaa muujizo. Marka waxaa la dhahay bal fiiri sida dameerkaaga u soo nooleeno. waxaa la dhahay fiiri lafaha sida isugu aadinayno andur ila alcidaami kayfa nunshizuha thumma naksuha laxma. Asagoo u jeeda lafihii Ilaahay taajiyay, hilibkii ku daday, maqaarkii ku daday, tintii ku daday, ruuxdii ku soo afuufay, dameerkiisii oo qeylinaya. Ilaahay uu soo nooleeyaa soo u jeeda oo Ilaahay tusiyay qaabku uu u nooleeyo. Marka Cuseyr markii uu arkay intaas
asagoo markii hore yaqiinsanaa inuu ilaahay wax dilo wax nooleeyo laakiin wuxuu usii ziyaadisay yaqiin waxayna ahayd mucjiso. ugu dambeyn Cuseyr wuxuu dhahay qaala aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiir, wuxuu yidhi ilaahay wax walba inuu sameeyo waa ogahay. haddana wuxuu ku arkay yaqiin iyo qaab sax uu arkay. wuu iska soo baxay Cuseyr oo wuxuu ku laabtay tuuladiisii 100 sano kadib. asaga muusan isbedelin laakiin 100 sano wax badan ayaa isbedelay. markuu tuuladii tagay wuxuu aqoon waayay gurigiisii oo dadku weydiiyey wuxuu dhahay Cuseyr halkuu degnaan jiray. markaas waxaa lagu dhahay Cuseyr 100 sano ka hor uu tagay, inuu dhintay in kale lama oga. xaafadaas uu degnaan jiray, meeshaas waa loo tilmaamay. markii loo tilmaamay wuxuu ugu tagay guriga wiilkiisa oo ilaahay cimri dheer siiyey. marka wuxuu ku dhahay aabahaaga ahay Cuseyr aan ahay. wiilkii uu ka rumaysan waayay wuxuu dhahay cimrigeyga kala barkiis aaba tahay sidee aabahey ku noqon kartaa. marka dadkina way ka rumaysan waayeen inuu Cuseyr yahay. markii dambe waxaa la dhahay waxaan kuu geynaynaa duq oo nooleed xilligii Cuseyr oo aragtay ayada kala sheegi doonto inay maaragtay aad tahay Cuseyr iyo in kale. marka duqdan waxay ahayd duq indhoole ah. duqdiyaa loo geeyey. duqdi markii loo geeyey oo waxay ku dhahday Cuseyr inaad tahay in kale waxaan kuu kala garanaa. Cuseyr wuxuu lahaa hal sifo uusan dadka uga ekeen. waayahay u dhahay. waxay dhahday Cuseyr wuxuu ahaa qof hadduu ilaahay baryo ilaahay ducadiisu waajibo oo ducadiisa marna aan la soo celin. ilaahay waxaad iiga barisaa in ilaahay araggeyga uu ii soo celiyo. markaasaan kula ogaanaa in Cuseyr tahay in kale. Cuseyr ilaahu baryay. ilaahay markuu baryay ilaahay duqdii wuu soo celiyey araggeedii. alxamdulillaah duqdana duq caqlileey way ahayd. Cuseyr marka saas reer bani Israa'iil ay ku rumeeyeen way weyneeyeen maaragtay way qadariyeen ilaa markii dambe uu dhintay ee dhaheen Cuseyr waa wiilkii ilaahay. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. marka haddaba maxay tahay ujeedada ilaahay uu kala jeedo oo ka dambaysa in ilaahay Cuseyr uu soo diro oo asagana maaragtay uu tuso dameerkiisii sida uu nooleynayay waxaas. xikmada ku jirta ilaahay noo sheego wuxuu dhahay walnajcalaka aayatan linnaas, si aan kaaga dhigno maaragtay dadka cibro qaadasho iyo aayad dadka ay ugu cibro qaataan. haddaba qisada Cuseyr intaasay nagu eg tahay. waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidaysateen oo ilaahay maaragtay iimaankiisa ee nagu wada durjisay oo nagu zaa'idisay. sidaasaan kaga tagaa kulanti dambe xiisa leh.